hay-adda GAA Germany Agro Action ayaa deeq raashina oo gaaraysa 400 oo qoys gaarsiisay deegaanada Dacarburug iyo Gorgore oo ka tirsan degmada Boon waxaana deeqdaasi loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi ee abaaruhu saameeyeen waxaana halkaas ka hadlay xubno ka tirsan guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal waxaana ka mahad celiyeen deeqdaasi ay hay-addaasi soo gaarsiiyeen dadkaasi danyarta ah halkan waxaan ku qaybinaynaa 100 qoys oo Jarmalku soo bixiyay waxaan u qaybinay 200 oo qoys halkii qoys loogu talagalay waxaan ku fadhiisinay maxay ahayd 2 qoys way dadku maxay ahayd inna qalimayso inna waxali mayso waxaan halkan saaka ku qaybinay waa Dacarburug oo ka tirsan deegaanka Boon ama Sagaafana sidii loo yaqaanaba waxaan ku qaybinay 100 qoys oo raashina intii alla u qoray baa si fiican u qaadatay si fiicanna way u qaateen sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay sarkaal ka socday hay'adda Germany Agro Action mudane Amiin waxaana uu ka waramay deeqdani iyo cidda loogu talagalay in loo qaybiyo annagoo ka tirsan hay'adda Germany Agro Action ee degan gobolka Awdal gaar ahaan ka shaqeysa horumarka iyo abaaraha taakulaynta abaaraha maanta halkan aan joogna waa Dacarburug waxaan wada soconaa guddiga abaaraha ee halka raashinka maanta aan ku qaybinay waa Dacarburug waxaan u qaybinay raashin ma garanaysaa ilaa 100 qoysa Dacarburug raashinka maanta aan keenay dhulkan ma ahine waxa weeyaan Gorgoreyna maanta waxaan ka qaybinaynaa 200 oo qoys Gorgorey markaas waxa weeyaan bari ilaa sahan dambe ilaa toddobaadkan insha Allah taala raashinkaas uu soconaya goobahan xeebaha ku dheerarsan oo dhan baan ka wadanaa gaar ahaan intaan soo xulnay waa ilaa 10 goobood laakiin maanta balaanka ama qorshe wuxuu yahay in labada goobood ka qaybino dadkuna raashinkaasi aad bay ugu faraxsan yihiin raashinkuna waa raashin qoys ka badan oo 2 qoysna ku filaan kara laakiin cadadka hay'adda ugu tala gashay uu yahay in ma garanaysaa uu qoys ku baxo marka had iyo jeerna sidii xalku yahay baan ku soconaa waxa sidoo kale ka mahad celiyay dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi kala duwan oo gaaraysa 400 oo qoys oo ku kala nool deegaanada Dacarburug iyo Gorgore ee degmada Boon hay'adda Jarmalka waanu mahad celinaynaa ee deeqda maanta noo keentay inay noo soo beeriyaan waan doonaynaa hay'adda Jarmalka waanu mahad celinaynaa deeqdan noo keentay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ma adeega gaadho inta wax noo keentayna waanu mahadnaqaynaa soo ma garan kuwa deeqda bixiya hadii aatiina waxaan doonaynaa deeqda inaan noo soo siyaadataan maahin markii ugu horeysay ee deeq noocana ay gaarsiiyaan dadka danyarta ah iyo dadka abaaruhu saameeyeen gobolka Awdal iyo gobolka Gabiley waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama